ورحمة الله وبركاته. هذه وما سنتهين مشايخ علماء أصحابته برنامج كذا قيب قلينه iyo dhammaan dadka daawanaya nagu xiran kulli ma aad ma nasiib badnaa ninkii sheekh Axmed Cabdisamed ka dambeeyo oo dhaho ka dambeeyo waa nin waxoogaa ma garanaysaa nin aan fursad fiican haysanin sababtoo ah dhan sheekhu waa culimadeena gaar ahaan aniga waxaan xasuustaa 2003 mar Ismaaciil ugu yimaadeen asaga iyo sheekh Hassan oo dadkii u horeeyay wax akhriska iyo nagu baraarjiyay hayeen waxaad markii koobaad project aan wax ka daawanay wax loogu soo jeeday aad baa sheekh u jeclaa waagaas ilaa iyo haddaba afkaartiisa aragtidiisa marka inaad sheekhaaga macallinkaaga ka dambayso xogaa iska adag tahay laakiin haddana insha Allah taala waxa weeye waanan wixii la qumo sheegi doonaa marka koobaad waxaan baraarujin aan amaanayaa oo si aan mahad ballaaran u soo jeedinayaa injineer Munir waxyaabaha aad ku fiican waxaa ka mid ah qofku inuu qoraal ku jiro shaqadiisina haysto aan waaga jaamacadda ka soo baxay injineer baa waagi baa igu dambeysay san geology u soo bartay 9 bilood oo hay'ad laga yaabo in Sheekh Axmed Cabdisamed oo aad uga warhayo dhisaad oo jigjiga ka jirta ka shaqeyn jiray ayaa geology waxaas igu dambeysay marka aad baan kugu amaanayaa in adoo qoraalkii hayo oo jaanibkii thaqaafiga hayo adabka ku jira haddana jawaanibtii kale shaqadaadii aadan loobin aad baan taa kugu amaanayaa runtii aad iyo aad baan kala wax kugu amaanayaa asluubkaaga mutamayiska anoon runtii aan iga ahayn amaan ama mujaamalo aan iga ahayn asluubkaaga mutamayiska kulmisaday aqoonta diinta iyo fahamka aadka u dheer u leedahay luqadda carabiga hadday noqoto qawaacideeda hadday noqoto suugaanteeda aad u adeegsanaysa marka inaad afkaartaada soo bandhigto iyadana aad iyo aad baa runtii waan oga kugu bogaadinayaa waana arrinna faran inaan dhammaan sii wadno arrimahan hadday noqoto qoraalka iyo hadday noqoto wacyigelinta iyo hadday noqoto dhiirigelinta buuggan anigu waxaan akhriyey markii ugu horreysay waxa laga yaabaa mar dambe soo gaaray 2000 iyo waxaan akhriyey 20ka bishii labaad ayaan filayaa inaan akhriyey ustaadkana aan ka wada hadalay oo barnaamij meel yar oo YouTube kol dhaho golaha buugaagta oo aan kusoo gudbiyo buugta aan niqaash gorfayn aan kusoo gudbiyo ayaan rabay inaan asaga iyo buug oo qoray Dr. Badiyo aan isku xijistay bishii saddexaad iyo afraad sanadka hore laakiin inkastoo labadaba diyaariyay wali ima suuragelin maalinka ilaa iyo maanta runtii waxaan aad iyo aad ula dhacsanahay oo aan mar walba aadan ka dhargeynin sida uu ustaadku u soo koobay mashaakil aad iyo aad u badan oo Soomaali haysata haddana uu ugu soo ururiyey buug aan saawsi weynayn oo 200 page aan dhanayn uu ugu soo ururiyey waxaa runtii aad iyo aad loo amaanaa dadka waxaa jirta badanaa hadday noqoto maraakista cilmi baarista ama hadday noqoto aqoonyahanka wax qora intooda badan waxay u badan yihiin dad ithaara ku sameeya mashaakilka jira kadibna intooda badan u daaya xalinteeda ama shacabka u daaya ama meelo kale u daaya ama dawlad u daaya laakiin ustaadku waxaan aad ugu amaanayaa in uu isbarbar dhigay uu sheegay mushkilad jirta uu sheegay kadibna xalkeeda uu soo gudbiyey waa arrin runtii aad iyo aad bogaadinteeda iyo mudan inkastoo laga yaabo intuu soo gudbiyey inaysan xalkii ahayn suu buug uusan u wada koobaynin mashaakilka Soomaalida haddana waa furo fiican oo qofku uu faham wanaagsan ka qaadan karo wixii uu qoray inkastoo Sheekh Axmed Cabdisamed igu horreeyay oo runtii uu soo koobay wax walba uu soo gudbiyey waxaan ku dari lahaa intaas in hal arrin ayaa haysata dadka qorayaasha badanaa Soomaalida farqi gaab ayaa u dhaxeeya qoraagii iyo dadkii badanaa ninka qoraaga ah kuma dhex jiro bulshadii oo lama noolaanayo lama tafaaculayo barnaamijyo ma qabanayo kama qaybgalayo yani qofku waxbuu qorayaa waxa qoraya uu iska deynaya haddii marka dadka af carabi kusii qora aan nahayna waan ka sii xag jirnaa sababtoo waxaan u baahannahay wixii aan qorno waxaan u baahannahay in dadkeena aan fahansiino waan wada ognahay in dhammaan waxa aan qorayna aysan Soomaali wada fahmaynin waa waxaan ognahay waxaa kaloon ognahay in aan u baahannahay in afkaarta aan inagu aan qornay oo inagu kasoo jeedna bulsho shafahi ah oo afka iyo maxaa la yiri iyo maxaad ku barideenaysaa wax ku kala qaata in intaan meel ku qorno aan ka tagno inaysan suuragal ahayn ayay ila muuqataa waxaan u baahanahay marka inaan barnaamijyo qabanno qofka qoraaga wuxuu baahay inuu nashid noqdo
ama mawaqti wasl ha noqdaan meelahan baraha bulshada ama ha noqdaan manasaad kale hadduu qofku jaamacad dhigo sida ustaad muniir oo kalena fursad runtii wuxuu haystaa uu wax badan kusoo gudbin karo marka waxaan halkaas aan boorin lahaa in qoraalka marka aan qorno aanaa ka tegine aan qoraalkii daba soconno oon kutumatirino oon dadkii u sharxano oon faafino oon jilcino oo wax badan aan ka daba tagno runtii ayaan aad iyo aad ugu waxay lahaa tajribadaas aan youtube-ka aan kanaalka youtube-ka aan sameeyey inkastoo aan nashid ahayn joogsi joogto ah haddana waxay i tusisay in badan oo soomaalida ka mid ah inay u ooman yihiin in ay wax ogaadaan mushkilad dadka neystana waxaa ka mid ah badanaa muxtawaha wanaagsan ama culumta ama afkaartu luqadda soomaaliya ku qoran way yar tahay ama waa english ama waa carabi ama luqado kale marka badana dadkeena waxay u badan yihiin dad aan luqadihii aan fahmaynin saa darteed marka haddii intaan buuga carabi ku qorno aan saa uga tagno way adkaanaysaa marka inay dadkeena ka faa'iidaystaan ustaadka marka waxaan kula talin lahaa in uu ku dadaalo inuu buugta uu qorayo uu shacabka u fududeeyo barnaamij waa dhexdaas uu sameeyo la wareysanayo koobnaa oo daqiiqa 2 iyo 2 3 daqiiqo ahaa aad iyo aad buu barnaamijka macno weyn u sameynayay waan la socon dadkii aad ku daawo jiraan kamid ahaa waxaa iyadana jiri karta day suuragalta in buugga tarjuma loo sameeyo waxaa kamid buugga loo bedelo muxtawa youtube loo bedelo oo inta qof u dhiibto gebigiisaba uu akhriyo ama Soomaaliya ku akhriyo ama luqad kale oo qof istimaac laga dhigo buugga wax fiican inta markaan ka tago waxaan gelayaa mawaadiicdii runtii la ii soo inaan halkan ka soo jeediyo la ii sheegay ka koowaad waxaa weeye waa ustaad xambalina uu hadda hadal ka soo daba tuuray uu yidhi bal martida iyo karaamadeeda iyo waxaasna iyadan waa in la fiiriyo waxay ila tahay qofku markuu dayf yahay wuxuu leeyahay in la sooro in la karaameeyo wuxuu leeyahay in laga dadaalo wuxuu leeyahay in wanaag walba oo ama diin ama dhaqan ama sooyaal uu noo sheegay aan kula tacaamulo laakiin waa marka uu qofka martida uu raacayo qawaacid la yaqaan ee martinimada ahaa isbuuska ahaa is-ururinta ahaa in uu ku ekaado doorka uu asagu leeyahay arrintan ka hadlayna maanta waxa waaye waa qof ajnabi ah ama aan Soomaali ahayn ama shisheeye ah oo intuu dal aad leedahay imaado dad aad leedahay imaado wixii oo dhan la wareegay taas waxaa bilow u soo ah oo hadda ka bilowno muqdisho iyo kismaayo iyo hargeysa iyo meelaha la midka haddaan ka bilowno iyo boosaaso iyo garowe ka bilowno runtii waxay noqonaysaa in wax badan oo naga maqnaado in goorma ay qaabiliyadda inaan qofka Soomaaliga isticmaar inuu qaabilo goorma bilaabato runtii waa wax hore inaan la noolaano dalal aan u aragno inay isticmaar yihiin ilaa hadda ay Soomaalidu la nool yihiin qayb ay saameyn bay ku leedahay in intii Ingiriis iyo Faransiis iyo Talyaani iyo Portugiis iyo dawlado badan intay soo weerareen oo Soomaaliis ay dhulka Soomaalida yimaadeen lala dagaalamay qayb badan oo Soomaali ka mid ah ay soo dhaweysay gol la gashatay oo difaacday lafteedu saameyn ayay ku leedahay in markii uu gumaysiga uu kacayay dalka la baneynayay lagaga tegay dad la rabaayadeeyay ama la tarbiyadeeyay ama loo diyaariyay si gaar ah oo xitaa haddiisan u adeegaynin danaha gumaysiga aan ka fogaanaynin mabda'iyan loo diyaariyay lafteedu saameyn bay ku leedahay burburka qofka Soomaaliga ku dhacay qalbiga iyo gudaha uu ka xanuunsan yahay ma garanaysaa mashaakilka haysta uu qofkii noqday daciif hash uu gudaha ka noqday laftigeeda saameyn bay ku leedahay marka ustaadku runtii arrintaas aad iyo aad buu uga hadlay wuxuu soo ururiyey tusaalayaal badan ayuu na siiyey runtii oo aad iyo aad cajiib u ah waxaa ka mid ah in ka u dambeeya aan kasoo bilaabe haddii uu dab dhaxmoodo maxaa lagu dawayaa baa layidhi culimadu sheego aad waxay ii soo jiita ka mid ah waxaan u malaynayaa ustaad xasan khadkii baa ka daciifay wuu ku yaraha dhagan yahay waxaan rajaynayaa in uu soo noqon doono haddii uu dab dhaxamoodo maxaa lagu daweeyaa isagoo meeshaas marinaya ayuu ku istaagay bal waynu ka yaraha war sugaynaa waa intaasoo uu soo noqdo insha allah waxaan filayaa inuu ka dhacay
ونقدر عيسومها أستاذ حسن. تمام. dib baan kasoo qaban doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala si uu usii dhammaystirto kelmadiisaas ama tacliiqiisaas ama doodiisa usii dhammaystirto. waxaynu soo gaadhnay qaybihii ugu dambeeyey nadwadeenna maanta. horta dadka dib nooga soo biiray waa nadwo cilmiyeed ku saabsan kitaab uu qoray injineer muniir sheekh cabdullaahi xaaji cabdisulaan oo la yidhaahdo asoomaal addaa'u waddawaa, cudurrada Soomaaliya haysta iyo waxaan filayaa sheekh xasan waa soo noqday ustaadii. hadduu dab dhaxamoodo maxaa lagu daweeyaa baad maraysid, ku soco. marka culimo badan oo waxaad arkaysaa dad Soomaaliya oo culimo ah oo intay barteen madhabka shaaficiyada Soomaalida bariga Afrika laga haystay oo dul khaliid tagay oo soo bedeshay oo xambali ama xanafi ama maalig soo qaatay. waxa loo baahnay runtii waa arrin aad iyo aad soo jiidatay. waxaa la mid ah wuxuu yiri sheekhu soo gudbiyadana midaal aad u qurux badan ahaa in qiraa'at abi camr oo inagu aan akhriin jiray Soomaalidu soo lahayn intii laga tagay qiraa'ooyinka la qaatay muxma, laakiin waxay ku tusinaysaa in waxa dadka kale haystaan ay kula weyn tahay oo waxaaga ay kula yar tahay. waa misaal aad iyo aad u qurux badan. waxaa ka mid ah in afkaaraha diimaha ku saabsan ama tafsiir liddiin ama qiraa'at liddiin dadku ay ku kala duwan yihiin. tusaale ahaan Soomaalidu ama salafiya ahaadaan ama ikhwaan ha ahaadaan ama wax kale ahaadaan, badanaa waxyaabahaas oo dhan waa wax laga soo minguuriyey deegaano kale oo aan Soomaali ahayn. saa darteed tusaale ahaan madhabka kasoo qaada salafiga ama wahaabiga waxa doonay ahaado oo ku soo koray Najd oo kulli alqalaada najdiya isaga jirto, markii Soomaali la keenay la damcay in lagu tatbiiqiyo bixadaafiri waxaa mashaakil iyo dhib ayaa kala kulanay. ikhwaanka laftigiisa markii Masar laga soo qaaday turba ghayr turbatii la keenay inqisaam iyo shidaar iyo tasaaruc iyo waxyaabo badan ayuu ka bixi waayey. macnaheedu in inagu aanan balwareyn karin ama aanan tusin karin wax inagu aan leenahay oo gaara. taas waa xagga culimada. waxyaabihii kalena runtii way kasii wada daran yihiin. tusaale ahaan siyaasadda maanta laba qof oo Soomaaliya inay wada hadlaan oo heshiiyaan oo isku afgartaan way aad bay u adag tahay haddayba suuragal ahayn. laakiin xumrata cayn iyo hal mar soo fiiriyo qof reer galbeed oo soo kala ordaya waraaqay soo saaraya oo isu imanaya oo wada shirayaan, suuragal ma labada qof Soomaaliya inay isu tanaasulaan. laakiin waxay tanaasulkoodu imanayaa in qof kale oo saddexaad oo ajnabi ah uu ku dhex jiro. waxaa la mid ah in aysan suuragal ahayn in gudihii Soomaaliya shirar lagu qabto oo Soomaalidu isu imaadaan oo dib heshiisiin la qaban jiray kulli dibadda lagu qabanayo. waxaa Sheekh Shariif runtii aad aan ugu amaanayaa xilliga dowladdiisa inuu ninka koowaad ee suurageliyay bal doorasho gudaha Soomaaliya lagu qabto. arrinta aad iyo aad ayuu ugu amaanaa. sidoo kale ustaadku wuxuu soo qaatay isbitaalada iyo macallimiinta jaamacadaha dhigay oo jooga oo Soomaali ah. malay maqlaa ustaad? si wanaagsan ku soc si fiican baa lagu maqlay. waxaa ka mid ah mitaalada wanaagsan ee ustaad soo qaatay in macallimiinta Soomaalida oo kuf ah oo dhigi kara oo aqoontii leh intii shaqadii laga cayriyo la keensanayo macallin ajnabi ah. waxaasaani ila daraa markaan Muqdisho ku arkay waiter ama cavalieri Zimbabwe laga keenay Zimbabwe. wuxuu keenayaa cambe iyo qaraha iyo cabitaanka ayuu dadka u keenayaa. hotel wuxuu ahaa Muqdisho ku yaala. waan qaadan waayay sidee Soomaalida oo shaqo la'aan oo baaba'san oo rafaadsan qof cabitaan keenaya Zimbabwe see loo keenaya. waxyaabaha hadii qofku uusan ku fikiri karin ayay runtii arrintaas ka mid tahay. sheekhu wuxuu kula soo qaatay fatwada in fatwada ama Masar ama Xijaaz ama Afghanistan ama meelo kale ku soo batay inaga ay noo soo badnay. sababtoo sheekhaas dil weydiyo ka soo wixii Soomaaliya ka socda ma yaqaanaya isdagaalaya maxaa isku dagaalaya maxaa isku haystaa. qaacida fiqi oo wanaagsan sheekhu wuu keenay. intaas ayaan kaga baxayaa runtii arrintaas oo ah Soomaalidu si guud maadaama ay burbur iyo dagaal iyo tiiraanyo ay la nooshahay indhaha Soomaaligu isma buuxinayaan in qof kale oo saddexaad oo ajnabi la helo. tusaale ahaan waxa kula mid ah qofka Soomaaliga markuu Soomaaliya joogo magaalooyinka Soomaalida hadduu biyo cabo ama xabad moos cuno qofka inuu iska tuuro waa sahal. laakiin hadduu wadamada kale xitaa Afrikaanka ku dhagan uu qofka Soomaaliga tago shuruucdu ilaalinaya. لأن قف الصومالي وحولها أقدر وحوليه ما احترامه لكن وحولهين أيها لوين وشرف له واحترام له وقدر له تاس وحبها أنت هاي مركا إن فهمتي دودي وكان شيخو يدويك الله سقوط الخلط عجيب صومالي الله سيو سو أرنتاس أو بوكسيدو شيخ وسوجي إن دتك اللي وعي قليو أو بالقف الصومالي ذات ديسة واغتراب وسندري إنه أما إنه سواي قف الصومالي
waa in loo sheego inuu yahay qof Soomaaliya oo karaamo leh oo wanaagsan oo sharaf leh oo taariikh leh oo sooyaal leh oo Soomaalinimadiisa wax ku noqon kara adduunka saameyn ku yeelan kara maaha inaan waxyaabaha iswaaga kamida iska cararka waxa kamida gabdhahaas cadeynaya maanta يعني ذاتي وقف كلها هي عرب إنه فرنج النقطة ما نقول كلام مكتئ هاي الله يبقى كم تاع سومال لما ذي قيب ضعف إنه جرى كم تاع إن كل ركينا مذو نلا عاي أو نلا دل عاي أو واحد نلا قديك أو كعرنا وحيابها وسيخ زوجي ذي أمنيت إن تذكر لقى شقية تعزيز الثقة وأهلنا دياد ونكسن وكل شيء إن سفي عن dadka loogu dhiirigeliyo in dadkii guumeyskalkaalka ahaa weligood soo jiray isticmaalka keenay u halgamay ama isticmaalka xilligii hore ahaato ama hadda ahaatee xaggee bay taariikhda kaga jiraan ma yihiin dad sharaf leh ma yihiin dad karaamo leh may marka imtixaaxa iyo in dadka dhabarka loo dhigo waxay ku tusinaysaa ama ay ku geynaysaa meel xun oo aan wanaagsanayn magacaagana wuu xumaanayaa masiirkaaguna wuu xumaanayaa weliga ubadkaa dhashana way saameynayaan سادرت الحب أنت إن كلنا نولات دون ندينا كلنا نولات قف لاج لصمن عن كوسين أنتوا يقانا جرنا يا وحلا مده وهكذا شيخ وزوجي ذي هنكين كرلو قاضو أو بل سومال لماذا يو قبك وضد كليه اللي سوء عليه نبغى حقيقة شيء كيوا دجالك 7 أيا نوريو تليانية ayaa dhulka Soomaaliya galbeed tagay marka wariyihina Soomaaliya la socda maamul baadiya oo gaajeysan oo aad isaga rafaasan oo duur degan ay u tageen markaas ay BNC BAC waxay siisay galaas biyo ah kii Soomaaliga markuu cabay kii Talyaaniga cabay maamadu way qaaday ciid bay gelisay wixii iska dhaqday markaas uu yiri maxay u sameynaysaa xib ka yaqsanaysaa adiga oo saantan rafaasan oo halkaan degan oo saana iga yaqsanaysaa aad bay ka yaqsanaysaa buu qofan Soomaali ahayn macna lama laha saanta baadiyaha degan marka bal in iyadana arrinta laga shaqeeyo way tahay waxaan aad ugu xumahay computerka iga radaysan dablaan biga yahay marka labay noqonaysaa inaan joojiyo ama iga damo inaan codka muuqaalka iska xiro u dhawaado meesha dabka u dhawaaday noqonaysaa marka xaggaasaan gelin doonaa waa inta ii dhiman oo sii waday insha Allah meesha iga durugsan kuwa maqlo maya waan uga xidhnaa cafwan بارك الله فيكم أستاذ حسن أحسن الله إليكم رنتي النقاط مقاطعات تفضل شيخنا هذا انت كفايه هديك الله وانا ما يواد ناصي ودي كرتا هدي wax ku dhimayeen waa aad baan u xiiseynaa okay haye fursad yar isii marka okay qodobka marka ugu dambeeya qodobka halkaas aan kaga baxaya runtii arintaas waxay u baahan tahay in Soomaalida laga dhiirigeliyo oo la waaniyo oo wax loo sheego qofka Soomaaliga karaamadiisa iyo dadnimadiisa inay tahay ma garanaysaa wax lagama biyo kama dhibcaana dhibkan iyo rafaadkana dadku dhan ay wada maraan gobtu way leedahay ma jabto ugu dambeynta waxaan ku xijinayaa mowduuca labaad oo ah wadaniyadda runtii wadaniyaddu waa waxa maanta Soomaalida aad iyo aad waxyaabahan ugu hooseeyna ay kamid tahay in dalkii aan laansho u dareemaynin misaal koobaad sheekh soo qaateen aad ka u dareemi kara ayaa waxa kamid ah in badihii la sumeeyo waxaan garanayaa 2004 xeebahan Kismaayo ku ciyaari jirnay oo waxaan dhalinyaro kubad iska ciyaarta waxa soo caari jiray haamo waaweyn oo wasakh iyo balaayo ay ku jiraan mama qaar markii la furo waxaad arkaysaa dadka fur way dhiman jireen mar qaar waxaad arkaysaa maalin kalluunkii oo dhammaan badda daadsan oo wada dhintay meed arkaysaa oo banaanka saa u wada daadsan lana sun ayaa badihii lagu shubay qofka ka shaqeynaya arrinta waa qof Soomaaliya laakiin aan lahayn dareen wadaniyad iyo dal jacayl aan lahayn waxyaabaha maaragtay wadaniyad la'aanta waxa kamid ah in qofkii Soomaaliga ah uusan dareen weyn buu u qabay in dalkiisii uu dago oo dawlad yeesho oo la isu tanaasulo oo ummadaha uu la ekaado aysan jirin ay naga maqan tahay runtii waxa waaye waa wadaniyad xumo misaal aad u qurux badan oo sheekhu keen waxa kamid ahaa wadaniyad la'aanta waxa kamid ah in qof Soomaaliya oo qof Soomaali u soo dawarsado oo adduunka loo tago oo loo soo shaqeeyo oo qofkii Soomaaliga ahaa wax loo soo keeno intii yareeda adduunku u soo qoray qofkii Soomaali loo soo dawarsaday oo qofkii macuunadii ama kaalmadii loo keenay u sii xado waxyaabaha runtii aad kiiga yaabi kamid tahay waana arrin aad u xun in qof gaajaysan oo baahan oo ooman oo Soomaali oo rafaasan wax yar lagu soo dhiibay aad dhacdo waxay ku tusinaysaa in wax xiriir ah qofka iyo adiga iyo dalku nool yahay aysan lahayn kulli wadaniyad la'aantu waa wax loo ogyahay kama sheekeenay waqtigu yar yahay waxyaabaha soo gudbiyay sheekha waxa kamid ah in da'yarta lagu tarbiyeeyo jacaylka dalka
dalka la jeclaadana ma mucaaradaysa ama iskama hor imanayaan diinta iskama hor imanayaan xitaa waxyaabaha la isku duwaya waxaa ka mid ah idinka culimo nabigu alayhi salatu wasalaam wuxuu dhihi jiray bismillaahi turbat ardina kolley idinka iga culumaysan laakiin halkaa waxay ku tusinaysaa in xiriir jacayl oo iimaani ah uu ka dhexeeyo dalka iyo dadka inuu ka dhexeeyo ku tusinaysaa marka halkaas laftigeedu waxaa ku jira markuu nabigu alayhi salaatu wasalaam uu baxayay uu aadayay makana waa kii lahaa aad baan ku jeclahay haddii aan laga kaa bixinin ama laga kaa cayrin kamaan tegi lahayn marka waa bal waa diin waa laanna meeshu ilaahay kugu abuuray aad ku dhaqan tahay lagaa raba inaad camirto lagaa raba inaad diinta ku faafiso waa inaad jeclaato oo mas-uuliyad iska saarto waxyaabaha dawooyinka uu sheekhu sheegay waxaa ka mid ah in la sameeyo maraakiis thaqaafi oo diini ah oo dadkii lagu dhisayo damiirkooda garaadkooda lagu kobcinayo arrintaasna waa arrin aan tijaabinay oo wax badan runtii qofkii maraakiista oo kala sameeyo uu garan karo isbeddelka qofku ku yeelanayo waxaa ka mid ah in siyaadada dalka la ilaaliyo iyo maaragtay dalka madax banaanidiisa laakiin hadda ma ilaalin karno soomaalida aad bay u adagtahay in la ilaaliyo laakiin soomaalida waxay kula qaybsan yihiin deegaano iyo qabaa'il dowladda laga yaabo laftigeeda in ay soomaalida xukuntana waa nin madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha ama afhayeen baarlamaana oo furaha qolku seexanayo nin ugandhiis haysto dee siyaada laga sheekeeyaba halkaa ma jirto qofka u dambeeya ee furaha madaxweynaha hadduu qof ugandhiisa yahay oo markuu habeen waagu baryana ka furaya markuu gobolka dhacana xiraya hadduu nin ugandhiisa yahay wax siyaado oo laga sheekeeyo oo runtii badan oo halkaas laysaga daaliyo ma jirto mawduucaan intaasaan kaga baxayaa wadaniyadu waa waxa naga maqan si dalka soomaalida uu nabad u noqdo soomaaliduna ay u wada noolaadaan oo inay waxaan wada leeyihiin ay dareemaan laanno macquul maaha in haddii aan saan sii ahaano oo wadani la-aantana kusii noolaano oo dalkeenna aanan dareen lahaansho aanan ku joogin dhammaanteen waan isla baaba'aynaa laakiin ma dhici karto in qaybna guulaystaan qaybna ay isu guulaysan ma dhici karto sheekha wuxuu soo mawduuca labaad ee saddexaad aan dhaho aan ka hadlay waxaa weeye waa aargosashada iyo xub intiqaam taas runtii waxaa lahaa aarashoha haddaan khaldanayn waa waxyaaba badan oo dadka soomaalida aadka u ragaadiyay ka mid tahay tusaale ahaan nin ardaala ayaa wuxuu dilayaa mid kale oo asaga u dhigma reerkii waxaa laga dilayaa ninkii u dhaqaaqayay ama ganacsadaha ama sheekha ahaa ama waayeelka ahaa ama suldaanka ahaa ama aqooyinka baa laga dilayaa qofka marka soomaaliga ilaa uu aar guto ma garanayo ma debi karo ama ma digaali karo waxyaaba laga waxaa ka mid ah hadduu shisheeye ahaan lahaa qofka soomaaliga uu istaagaya sheeko waxaa jirta dhulkaas soomaali galbeed ka dhacday oo laiga sheekeeyey kolley iska asaadiirtana waa laga yaabaa nin baa layiri hebel walaalka waa la dilay qori buu qaatay wuu orday xaggan xabadiibu qori waa xabad waryaa dila dhaalay yaa dilay xabashi waa dishaa layiri wallahi xabashi waxay dili intuu yiri qori iska dhigaa layiri marka wuxuu moodayay inuu macnaha qof Soomaaliya uu yahay ilaa uu dilo ma digi lahayn laakiin markii qofkaas dilay uu iska istaagay marka runtii arrintaas waa arrin aad dhibaato badan ugu geysatay qulqulato badan sababtay أهل الحل والعقد أعيان المجتمع الصومالي إن بلاش لو والله أنا رنتي هذه سبب واحد شيخ كدوي إن قف الصومالي على بربل إنه يستجيو هدوء الأعصاب إن دلقات يجلسي ذلك عيشان إن عن وحي مركو أنا إسكور دير بلدتك مسؤولية على اللو وحي هذين نقطة الدولة هذين نقطة قضيان هذين نقطة واحد علماء وحدون هاتي مركو حرعو إن قفكو شخصيا وصنقان قادنين bal dadka loo celiyo ayuu sheekhu runtii aad iyo aad uga hadlay kulli wuxuu soo qaatay booliisi waxyaabo la mid ah Soomaalida waxa laga yaabaa badankood inay ku nool yihiin meel aan booliis balahayn marka bal dadka iskale mas'uuliyadda in loo daayo ayaa muhiim ah arrinta ugu dambaysa waxa waa degdega aad iyo aad Soomaalida loogu dhaliilay oo qodobka afraad oo Soomaalida runtii loogu dad ayaa waxay dhahaan waxaa badanaa Soomaaliya ku talaalay Talyaaniga iyo gumaysiga ayaa ku talaalay laakiin Soomaalida Talyaanimoodu gumaysanin waa wax ka horeeyay وانا أرن واحد بدنا نعرف صالحان سومالي way ismucaaradayaan way isdagaalayaan way isbuuqayaan waxay بدون الشروط بهدنا هالشيء هذا بدون الشروط هذا هذا way isdagaalayaan لأنه ما jiro wax intii ta'ani iyo deganaansho iyo kabaaraan deg iyo aqoon iyo baaris iyo cilmi inta loo fariisto la xalinay ma jiro wax walba degdeg iyo xamaasad baan ku qabanayna isla degdeg iyo xamaasadii ay hadana wax walba kaga tanaazulayna runtii waa arrin aad iyo aad noo ragaadisay oo baahan in mujtamac laga wacyi geliyo in dadka la baro bal tadarruj iyo wax in tartiib loo sameyn karo in dadka la baro inaasaan runtii ku soo koobaya buugan aan u akhriyay
waxaan rabay inaan buugga waxa ku qoran mujtamaca usoo gudbiyo aad buu sheekhu u mahadsan yahay mawaadiicda runtii aad iyo aadka ii cajabisay kolley doctor sheekh axmed asimed ka hadlay waxaa ka mid ah jahliga qaadka qabiilka faqriga iyo tacasubka inaas waa ina u baahan weliba in si degdeg ama loo tarjumo ama af soomaali loogu akhriyo aad bay aniga xasan ahaan ila wanaagsan tahay ama xubu sulda dadka dhan way ka wada dhaxaysaa wax marad inaga gaarno ama adduunka dhan bay ka dhaxaysaa inaan sulda jeclayn male laakiin aniga xasan ahaan aragtideeda qabiilka iyo tacasubka iyo faqriga waxyaabahaas iyo qaadka waxaan u baahannahay inaan si fiican u daraasiino in waxaan u baahannahay soomaalidu bal ay ogaadaan dhibaatada ay leedahay iyo rafaadka ay dadka ku hayso intaasaan kusoo gabagabeynayaa qoraalkii buuggii sheekh muniir waxaan ku darsanayaa marka oo tala yar ah in barnaamijkan anu ma maqlin weli StreamYard weli ma maqlin wax igu cusub marka bal culimada taqaani injineerada waxaan ka codsan lahaa in aan sii wadno oo bal buugta aan isleenahay faa'iido dadku u leeyihiin in laga doodo oo saan loo niqashin kasoo diyo culimada iyo shuyuukhdu ay laga yaabo inay mashquulkooda iska badan yahay haddana bal in mujtamacii haddii laga maqnaa dad kala qaadanaya markaad aragto qof taafiha oo ay daawanayaan boqolaal kun ay daawanayaan qof laga yaabo inuu wax wanaagsan sheegayn 4 ama 5 ama 6 daawanaya waxaad garanaysaa inaad saaxada ka maqan tahay bal waxaa u baahan in saaxada la soo galo oo dadka haddii xitaa lala tartami karin waxaa u baahannahay dadka in macnaha bal saaxadii lagu celiyo oo dadka xagga loo soo jeediyay ayaan aniga codsan lahaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waan salaamayaa waxaad tihiin culimo aan aad ugu farxsanahay inaan barnaamij kala qayb galo salaam